hooyo Soomaaliyeed baa laga helaa in ay subax aroortii inta kalaahdo oo quraacda u samayso oo suuqa u aado u soo shaqayso ay iskool iyo dugsiga ka bixiso ilaa jaamacad ka bixiso ay misana reer u dhisto yacni ku biisho hooyo Soomaaliyeed baa laga helaa xagee adduunka kaloo laga helaa ma jidho gabar Soomaaliyeed mana aaminsani gabar ka karti badan gabar ka carfoon gabar ka dhowrsan gabar waryaare nimankii naas ku haya Moroccan u yaacayna waxaan idiin sheegaa yani fuduul baa igu haatay waxbaan idiin sheegaya waxaan idiin sheegayaa ma jidho gabar Soomaaliyeed mana aaminsani gabar ka karti badan gabar ka carfoon gabar ka dhowrsan gabar yani dhinac kasta uga wanaagsan diiniyan dhaqan ahaan iyo haddii ay noqoto dad la dhaqan yani gabar uga wanaagsan inay jidho ma aaminsani waana sida xaqiiqda ah diiniya hadday noqoto markaad Yurub aadid ama Maraykan yani dadka aaday baa garanaya iyaga ka markhaatiga carabtii iyo kuwa kana hadda u ordaysaan iyo baa ka markhaati kacaya xijaabka Yurub iyo Maraykan in lagu qaato gabdhaheena baray iyo xijaabkoodii weynaa wata khamaar yare ama xitaan ama way tuuraan marka Yurub iyo Maraykan tagaan marka diiniyan haddii la dhaho annagaa barnay si xijaab loo xirto dhaqankaas annaga gabdhaheena gaar u leh diin hadday noqoto oo quraan hadday noqoto akhris noqoto yani gabdhaheena dhinacaas ku wanaagsan dad la dhaqan iyo hadday noqoto karti cidna kuma gaadho last 10 years 30 sano u dambeeyey waxa dalka badbaadiyey gabdhay ahaayeen yani da'dayda ilaa iyo wixii iga hooseeya waxaan soo koriyey oo yaanyada u karinay yaanyada suuqa ugu fadhiya oo hilibka qalaya oo iskool ka bixinaya dugsi ka bixiyey wax soo baray dhalinyarada hadda wada yaacayso dhan hooyaa wax badhay hooyadaas waa hooyo Soomaaliyeed hooyo kale adduunka ma jidho saa wax u korinaysa yani 30 sano u dambeeyey raggeenii wax islaaya wax meelaha u yaaca wax daroob oo noqdo qaad iyo sigaar u fariista baa noqon waxaan noqonay rag qaad u cuna ayaga islaynaya qabiil isku ceersanaya caruurteena waan dayacnay waxaana soo koriyey 30 sano dhalinyarada hadda yaacaysa soo koriyey waa wada hooyo kulligood baara hooyo Soomaaliyeed baa laga helaa in ay subax aroortii inta kalaahdo oo quraacda u samayso oo suuqa u aado u soo shaqayso ay iskool iyo dugsiga ka bixiso ilaa jaamacad ka bixiso ay misana reer u dhisto yacni ku biisho hooyo Soomaaliyeed baa laga helaa xagee adduunka kaloo laga helaa gabar Soomaaliyeed baa laga helaa in ay inta nin daroob awda guursato ciyaal oo ay dhasho ciyaalkaas ay korsato iyadu wax badho dhan kasta ka dhisto jaamacad geyso ka saadho yacni ay reer u dhisto misana ay reerkii misana ku biisho iyadoo nafteedii ilowday kartidana gabdhaheena Soomaaliyeed dhaqan bay u leeyihiin oo ninku waagii hore oo intaan magaalada la soo gelin ninku gabadh intuu guursado oo geel ari fardo wax walba yani uga tago iska safri jir waxa laga yaabaa sanad inuu maqnaado intaasoo bilood maqnaan jir marka gabadhaasi ayadoo waxa laga yaabaa uur leh ilmo sinta ku sida ilmo nuugayaan bay waxay isku qaban jidhay arigeeda raacan jidhay galabtii geeleeda soo caraaban jidhay xoolaheeda maamulan jidhay yani qof kartila dhaankeeda dhaansan jidhay ciyaalkeeday habaysan jidhay waxaasoo dhan dusha u saaran jidhay kartida iyo adayga yani hidiya dhaqan bay u lahaayeen markay magaalada soo galeen waa idinka arkaya markhaati ka ah maalin suuqyadana waxaa jooga suuq kasta oo Soomaaliyeed yani suuq kasta oo Soomaaliyeed waxaa jooga hooyo Soomaaliyeed oo yaanyo gadaysa hilib gadaysa dhar gadaysa waxaasna waxay ku biilaysaa meel kale lama aado bangiyo ma dhigato nafteeda kuma daryeesho waa wada xanuunsan yihiin xanuun baabi'iya intaa cunaysaa nafteeda uma quudho in ay
dhakhtar ku aado, waxaas waxay ku biiraysaa ciyaalkeeda oo idinka ah. Marka maanta inaad meeshay idinka sugaysay inaad wax ku celisaan aad dhahdaan xalimooyinka waa la nacay, marookan u socnaa, hablaayaan u socnaa. Marka waxaa waaye taasi ma idinka qabataa? wax gabar Soomaaliyeed u dhigma adduunka lagama helayo, ama Iswaala ama Maroko aada ama Faransiis aada. yacni hooyooyinkan hadda fiiri, dadka ugu badan oo shaqeeya waa hooyo, waa gabar Soomaaliyeed. marka in aan ku jisaarno haddeer maba ahayn, waxay ahayd inaan dhahno waa mahadsantihiin gabdho Soomaaliyeedow. hooyo gabar kasta waa hooyo, gabar kastoo maanta hooyada beri weeye. marka waxay ahayd inaan dhahno naga raali noqda. yacni 30kii sano u dambeeyey dadkii waxna soo baray hooye ahayd. aniga shaqsi ahaan hooya ay soo korisay, waxay soo badhay dugsi iyo iskool iyo jaamacad iyo waxaba gabar baa iga bixinaysay. gabar baa yani waxaan cunayo, cabaye, xiranayo hooyo Soomaaliyeed baa siinaysay. yacni maxaa marka kulligiina isku mid baatiin, saasaa wadatiin, kulligiin hooya idin soo wada korisay. marka haddeer inaad dhahdaan marookaan aadaynaa, raqiis baa la sheegay. marka adeerayaalow yareeya buuqa kan aad la ordaysaan. waxaan idin sugaynaa kuwa hadda sii yaacayo oo marooka u soconaa ku haya 6 bilood kadib idinka oo naga raali noqda, aan ku khaldanay dhahaya bal idin sugaynaa. sababtoo ah gabdhihii Soomaaliyeed oo la afka ahayd, la dhaqanka ahayd, la diinta ahayd, yacni isku manhajka ahaydeen, wax walba aad ka sinaydeen baa isfahmi la'din. 24 saac is haysataan, is furaysaan. marka sidee isku fahmaysaan qof inaa isku dhaqan ahayn, isku wadan ahayn, isku af ahayn? diinta laga yaabaa inaad isaga soo dhawaataan bas, isku kala ahayn. yacni wax aad iskaga mid tihiin ma jiraa, diintaas un maahan. marka qofkaas sidee isku fahmaysaan? kaad isku diinta iyo afka iyo dhaqanka ahaydeen baa isfahmi la'din, oo 24 saac iskala laadaan oo isfuraysaan. marka adeerayaalow runta aan isu sheegno, faaraxyaalow, yacni waddanka aad ku yaacaysaan xeerar buu leeyahay. sida Soomaaliya kale, gabadha intaa iska guursatid iskama furi kadhid, waa inaad maxkamadda tagtaa. markaa furaysid, haddaad mid labaad guursanaysid, waa in aad iyadu warqad kuu saxiixdaa. marka iska orod maahan meesha iskaga ordaysaan. dadkeennan dhalinyarada iska ordaysa, gabadh aad guursanaysid, yacni gabadha Marookaanka ah xaq bay waxay u leedahay inay warqad inta qorato dhahdo ninkan halayga furo. waa furaya ninka, iyadaa ku furi kadha. waa xeerkooda, dhaqankooda, xeerkoodaa dhigaya. waxaa kaloo jira iskama furi kadhid. gabdhaha Soomaaliya markaas qabataan warqad baa iskaga qoraysa 2 markhaati, orod iska tag. laakiin halkaas waa inaad maxkamad tagtaa, iyadu ay labadiinu aad wada ogoltihiin, israali isaga tihiin. yacni wax badan baa jira oo inaan ogeyn oo qarsoon. meesha isaga yaacaysaan dameeri dhaan raacday baa tihiin. laakiin 6 bilood kadib baa idin sugayaa idinkoo hadal kale ku hadlay. waa bilaahi towfiiq. barnaamijkan waxaa maalgeliyey dumarka.